kulamadaas muddadii uu socday fursad la isugu helay in ay si gaar isku arkaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka madaxdii hore ee madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh iyo sheekh shariif sidoo kale madaxweynayaashii hore ee Puntland mudane Dr. Cabdiwali Cali Gaas iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole madaxweyne ku-xigeenyaashii hore iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Geedi intaas oo dhan runtii waxay muujisay shirkaas oo maalintii shalay qabsoomay waxa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dowladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaas wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleema saarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer Puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aad u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud uu halka ka dhaco maadaama fursad aad qaali u ahayd waxa dadkii oo dhan isla qaateen uu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed in wixii dadka Soomaaliyeed ku kala dhex jiray xal dhalay laga noqdo hore loo socdo dalka iyo midnimadiisa laga shaqeeyo runtiina waxay ahayd kulankaas kulan taariikhi ah oo garow ka qabsoomay oo Ilaahay uu noo suuro geliyay kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isku arkeen wuxuu gogol xaar u noqday in kulamadii u dhaxeyn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo howlaha iyo ajandayaasha dhabta u ah dowlad dhisidda si qoto dheer loo galo oo aad loo lafaguro si loo gaaro horumar shacabka Soomaaliyeed ay ku laanoonayaan runtii arintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garowe waxaana ku faraxsanahay inay Puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya in kaalintaas firfircoon ay u qaadato waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda Puntland u furan tahay ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda diyaar u tahay in wax kasta oo midmadooda oo soo kala dhaxgala ay kaalin muhiim ah ka qaadato waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay wada jirka ilaaliso midnimada ka shaqeyso dowladnimada ka shaqeyso hore loo wada socdo wixii khilaafaad ee shakhsi ah ee u dhaxeeya meesha laga saaro cid walba ay tahay ummadana ay ka wada shaqeyso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto sidii cadawga ummadda Soomaaliyeed ee nabadiidka ana loo ciribtiri lahaa dowladnimada Soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa horumarka iyo sidii dadka loogu adeegi lahaa laga wada shaqeeyo waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto kulamadii halka ka soo baxay inay ahaayeen kulamo dhiiri gelinaya shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan shacabka reer Puntland sharaf iyo karaamo u soo hoynaya tusinayana inay diyaar u yihiin inay walaalahooda Soomaaliyeed la qaybsadaan wax walba maxaa yeelay inta meel ka mid ah Soomaaliya ay dhibaato dareemayso dhibaatadaas waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed wada haysato waxaan rajaynaynaa beejkaas inuu beej cusub fur noqdo madaxda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in ay waxa dadweynuhu ka sugayaan sida ay tahay loo qaato waad salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh